آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Our past lesson or this lesson is about today shopping for groceries. عشان كنا نحكي سابسنا shopping for groceries كتكاميسيا بوشرية waxay noo marisay Maria oo ku khaldantay ninkii oo u tiriyay lacagta doonayay inay bixiso ku baan ka xumahay aniga xagga lagu bixiyo dibadda lagu bixiyo marka waxa uu tagtay Baacher waa hilibligii bay tiri Baacher waa hilib leeyaan kan ay help you ma ku caawin karaa buu yiri kan ay help you ma ku caawin karaa Maria waxay tiri I would like waxaan jeclaan lahaa a chicken waa digaag a chicken waxa digaag bay tiri a chicken waa digaag please fadlan a chicken digaag buu please fadlan Baacher waa hilibligii ba halday would you like ma waxaad jeclaan lahayd awul mid isku dhan baad jeclaan lahayd awul ma mid isku dhan baad jeclaan lahayd or cut up mise mid la jarjaray awul ma mid isku dhan baad rabtaa or cut up mise mid la jarjaray waxay tiri awul fryer mid isku dhan oo qalajsan awul fryer mid isku dhan oo qalajsan please fadlan I will cut it up myself ana nafteeda jarjaran doona I will cut up one jarjaran doona I will cut it up iyada ana jarjaran doona myself nafteeda jarjaran doonta buritaanka mahadsanid bay ku tiri hadana waxay tagtay baker waa ninkii roodhilaha yes buu lahaa madam Maria Marwa Maria yes ha madam Maria Marwa Maria Maria waxay tiri I would like waxaan jeclaan lahaa a loaf of bread jabroodiya a loaf of bread jabroodiya please fadlan I would like waxaan jeclaan lahaa a loaf of bread jabroodiya please fadlan baker waa ninkii roodhilaha do you want ma waxaad doonaysaa ryer mid roodhi cas wool wheat mid ka samaysan qamandi wool wheat mid ka samaysan qamandi or white bread mise roodhida cad baad doonaysaa buu yidhi do you want ma waxaad doonaysaa rye mid cas wool wheat mid ka samaysan qamandi or white bread mise roodhida cad baad doonaysaa bay tiri I will take a rye bread waxaan qaadan doonaa roodhida cas bay tiri I will take waxaan qaadan doonaa a rye bread roodhida cas baan qaadan doonaa I will take waxaan qaadan doonaa rye bread